Raiisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kormeer ku sameeyay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir si uu u kurgalo amniga caasimadda isagoo waqtina la qaatay shacabka halkaasi uu kula kulmay. Raiisul Wasaaraha waxa kormeerkaasi ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Goobaha ay isugu yimaadeen bulshada Muqdisho ayuu Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya kula kulmay qaybo ka mid ah shacabka kuwa uu weydiiyay talooyin iyo tabashooyinka ay doonayaan in dawladda ay wax ka qabato isagoona si cad uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen qaar ka mid ah dadkaasi. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa suuqa bakaaraha kula kulmay ciidanka booliska oo ku jira xilligaasi howlgallo ay ku xaqiijinayaan amniga caasimadda waxa uuna ku bogaadiyay kulana dardaarmay in ay laban waajibaadka ay ku aadan ilaalinta nafta iyo maalka muwaadinka. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir ayaa war-saxaafadeedka ugu warmay socdaalka Raiisul Wasaaraha. Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre waxa uu caaway kormeer ku soo maray qaybo kala duwan oo magaalada ka tirsan si uu u kurgalo xaaladda amni iyo midda nololeed ee shacabka magaalada ay ku sugan yihiin. Wasaaruhu wuxuu tagay goobo ay dadku iskugu yimaadaan ama dhalinyarada iskugu yimaadaan oo maqaayadaha ay ka mid yihiin Karmal iyo Pizza House iyo goobo kale oo magaalada ka mid ah. Runtiina Raiisul Wasaaruhu wuxuu kula kulmay dad ka tirsan shacabka iyo dhalinyarada iyo haweenkii halkaas joogay si uu ugu dhiirigeliyo maalintooda ay halkaas ku qaadanayeen iyo inuu goobo ka tirsan ciidanka oo uu booqday. Raiisul Wasaaruhuna wuxuu u kurgalayay amniga magaalada si ay la socotaan maamulka gobolka Banaadir maalmihii la soo dhaafay wuxuu waday kormeero iyo kurgalid xaaladda nololeed iyo midda amni ee shacabka magaalada ku dhaqan yihiin. Raiisul Wasaaruhuna asagoo barnaamijkaas qayb ka ah caawa wuxuu sameeyay kormeerkaana waa kormeer joogto ah oo Raiisul Wasaaruhu uu kurgalayo. Cabdiraxmaan Siciid Xasan Cabdiraxmaan Talante Galmudug TV.